السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت سلام يا وانك سلام يا صاحب حسن. وحويا وحوغا راليغا هذا اللايف كي هورين سو غلاي وحوغا waxaan yar noqday waan wadi kari waayay adu barnaamijka غير khaldamay xoga xaaladaha jira iyo siday wax yihiin iyo waxyaabaha iga laaqay macnaha insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda maanta ka taagan deegaanka Soomaalida qaybo kamida oo gobolka City ka tirsan sagaalkii degmo sagaalkii xaafadood ama degmo ee la hoos geeyay canfarta iyo waxay maanta canfartu ka yeelayso iyo dibtu halka ay taagan tahay waxaan ka hadli doonaa in deegaanka meelo kamida oo dhulkii murankuba auna ka taagnayn sida dan la helay oo kale ay soo galeen oo dad lagu leynayo oo guryo lagu gubayo oo shacbi la barakicinayo laakiin deegaankii Soomaalida dawladii lagu sheegayay aynan ka hadlaynin dibta dadka haysata waxaan kaloon ka hadli doonaa in meelaha qaarkood degmooyinka qaarkood si diiran oo geesinimo leh inkastoo ay habsaan tahay oo ay leeyahay looga banaan baxay oo loogu heelinayo dadka waxa kaloon aad u bogaadinaya Reeysha oo wadadii xiray kala Djibouti iyo Ethiopia isku xiraysay taas oo maxaa la yiraahdaa aad ugu hambalyeeyo wax la soo koobi karina waxyaabaha baan ka hadli doonaa waxa kale oo si toos ah fariin ugu direynaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne ku xigeenka shirka ay maanta magaalada Tirdaba ku yimaadeen waan ka hadli doonaa waxaan leenahay inta ayna gacantayadu meel sare ayna gaaraynin waxaad ogaatiin inaan mar una argoosan doono insha Allah waxaan ognahay nimanka maanta madaxda ka ah deegaanka Soomaalida Ethiopia inay shalay toole markay madaxtinimada raadinayeen ay aad u jilicsanaayeen meelahii ugu muhiimsanaayeen lagu soo dhaweeyay oo kamid ahaa gobolka City iyo magaalada Tirdaba laakiin maanta inay ka hadli waayaan dibta waa wax iyada cusub laakiin waxaan marka hore rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku geeriyooday doonyar iyo dan la helay iyo garbaciisa iyo dhamaan deegaanka dagaalku ka socdo waxaan leenahay waxa ay dishay gacan ka xaq daran waligeedna rag waa dhimanayay wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacana Ilaahay ha caafiyo inta jiida hore ku jirtana waxaan leenahay dhimasho hadii la dhimin lahaa waxaad dhimanaysiin to dadkiina iyo dalkiina iyo naftiina difaacaysiin waa jihaad qofka hadii reerkiisa iyo ilmihiisa iyo ubadkiisa iyo reerkiisa loogu yimaado oo aw dhabarka jeediyo waa dambi waa gaf waa Ilaahay waa kugu qabsanaya hadii laakiin reerkaaga iyo ubadkaaga iyo ilmahaaga aad difaacdo oo aad maxaa la yiraahdaa fooda laga toogto waa mujaahid waa mujaahidnimo waxaan leeyahay hambalyo idinkana waxaan leenahay halka hawsha ka sii wada kuwa jiida hore ku jira waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed cid kasta oo dameer leh way ni garab joogtaa
ilaa iyo hadda meelaha ay dagaalku ka dhacayaan waxaan ognahay dagaalka inay ku jiraan laba qaybood oo muhiim ah. qaybta koowaad inay tahay ciidankii gaarka ahaa ee canfarta kilalkeedii oo maxaa la yiraahdaa dawladdii iyo nidaamkii iyo nidaam habaysan oo xag cabinetka canfarta ka soo baxay uu yahay. ujeedada laga leeyahayna ay tahay in dadkan la barakiciyo kadib markay barakacaan ee dhulkan ka kacaan dad la soo dejiyo dawladda federaalku imato la kala dhex galo, laakiin marka hore ay tahay dadka in la kiciyo ay tahay. markaas waana go-aan ay meelo kale dabada ka riixayaan, dawladda federaalku dabada ka riixaysa, laakiin muhiimadeeda iyo go-aankeeda ay leeyihiin maamulka canfarta. marka waxaa la go-aamiyay shacbiga in la barakiciyo, barakicintiina way jirtaa oo ilaa hadda meelo badan baa la barakiciyey. waxaana dagaalamaya waa ciidankii liu booliska ahaa, waa ciidankii gaarka ahaa weeyaan. ma raba inaan ereyga liu isticmaalo, waxaan rabaa inaan isticmaalo ciidanka gaarka ah. waa ciidankii gaarka ahaa ee canfarta oo si bareed ah iyo hubkiisii iyo teknikadiisii wixiisii u dhan yahay dadka ku gumaadaya wejiga hore. wejiga labaad waxaan ognahay waxaa soo gashay jabhaddii canfarta ee Eritrea ka dagaalamaysa. Eritrea joogtay ayaa hubkeedii iyo wixeegii intay la soo gashay Eritrea ka soo gashay qaybta saddexaad waxaan ognahay qolooyin ka yimid Djibouti oo hub iyo lacago iyo hanti badan wadaay inay meesha yimaadeen oo iyagana dagaalka ku jiraan. that means saddexdan degmo ee yar waxaa la dagaalamaya ciidankii liu booliska ee canfarta, jabhaddii canfarta oo ka imatay Eritrea iyo dad badan oo hub iyo maxaa la dhahay xasaanada kalaba wada oo Djibouti ka yimiday ayaa waxay isku kaalmiyeysteen in ay dadkan barakiciyaan, wadankana ka kiciyaan oo ay riixaan. kadib markay riixaan ee meesha ay ka kaxeeyaan ciidan federaal la keeno, kadibna cidna ayna soo gali karin iyakuna ay dadkana saa lagaga saaro. marka waxa weeyaan weerarku weer loo kala haray ma waxaan se dhinaca kale ka eegaynaa waxa weeyaan dawlad baa ka hortagi karta, ciidan gaar ahna ciidan gaaraa ka hortagi kara, jabhad baa ka hortagi karta. saddexdii midna ma taala hadda oo dadkan meesha joogay saddexdii cidna gargaar kama haystaan. waxa intaa dheer oo aan ognahay cid kasta oo canfar ah oo meesha wax lagu yeelo oo wax noqota waxaa qaadaya ambalaasyo, waxaa lala daba joogaa dawadii, waxaa lala daba joogaa biyihii, cuntadii iyo adeegii, hubkii, wixii oo dhan baa lala daba joogaa. laakiin dadkan shacbiga ah waxa weeyaan cid hub geynaysaana ma jirto, cid daawacooga daweynaysaana ma jirto, cid wax u qabanaysaa ma jirto. waxaan ognahay waxa weeyaan dadka gobolka City imika dan la helay waa gobol ka tirsan inta aanan muranku xataa ku jira kuma jirto. dad baa lagu laayay, guryaa la gubay, xaafadaha la baabi'iyey. cid bili aadan oo u gurman kartaa ma jirto. haddii ay dawlad deegaan ay jirto waxaa dhici karta dad badan oo ay daawanayaan inay yidhaahdeen dawladdii deegaanka ayaa joogta waa loo gurmaday, ama dawladda deegaanka ha eedeynin oo si nacam reebnimo iyo qololnimo iyo waxaabaad erey baad isticmaalaysaa. waxaan u sheegayaa dan la helay oo ka tirsan deegaanka ciidan liu booliska soo galoo dadlaayo. ciidankii liu booliska ee deegaanka Soomaalida dadka Soomaaliyeed haddii xaqiiqda indhaha la iska qabto waa gaalnimo weeyaan. macnaha qofku hadduu runta diido waa faasiq. waxa weeyaan deegaankii Soomaalida wuxuu u gurman waayay muran. kolkii hore waxay ahayd inta muranku ku jiray dadka ku dagaalamayeen halqabsi baaba jirayba oo muran baaba taagay, inkastoo ay canfartu macal murankii taagnaa ku gashay. laakiin waxay deegaankii Soomaalida ay arki waayeen meelihii xuduudaha. macnaha taas waxay ku tusaysaa gobolka City kama tirsana deegaanka Soomaalida inteeda kale. waxaan ognahay xuduud ahaan iyo fogaansho ahaanba waa ka fog yahay, sidaas darteed deegaanka kama tirsana. hadduu ka tirsan yahay waxaa la dareemi lahaa maanta, waxaa laga arki lahaa gargaar.
gargaar baa laga arki lahaa taakulayn baa loola tegi lahaa dhaawacaa la daweyn lahaa maxaa la yidhahdaa qofka dhintay baa la aasi lahaa inta gaajoonaysa yaa gargaar loo fidin lahaa taa beddelkeedii intii gawaari cadcad iyo diyaarada lasoo qaabtay baa maanta magaalada Tirraba yimiday ugaaskay la kulmeen madaxweynihii kusiisimaha ahaa iyo aadan faarax uu ku-xigeenka ahaa taasi ma keenaysaa inay gurmad dad loo fidiyo ma waxaa gurmad loo fidinayaa in aqalka ugaaska la yimaadaa gurmadku mise gurmadku waa dadka dhimanaya ee dhaawaca in la geeyo sidaas darteed meesha waxaa ka cad oon maxaa la yidhahdaa ka gagabanan oon ka warwareegaynaa gobolka City deegaanka Soomaalida kuma jiro waxaa ku xiga ee intaa ka habboon ee la samayn karaa waxa weeyaan dadka gobolka City degan tuulo kasta oo ay degan yihiin waa inay isku gurmadaan waa inay gurmad dawladeed sugin waa inay cid kale wax ka sugin waa inay isku gurmadaan oo ay dadka walaalahooda u kacaan oo inta dhaawacaana la daweeyo inta dhimatayna la aaso inta barakacdayna cunto iyo biyo iyo wax lala gaaro kuwa dagaalamaya xabadda hayana hub lala gaaro waxaan fariinteeda u dirayaa markii koobaad intaanan fariinteeda guud gaarin dhalinyarada maanta degmada ay shacay iska abaabushay ee xidhay wadada waxaan ognahay wadada labaad ee Djibouti laga galo ee ay Ethiopia wax ka soo deshatay waa wadada marta ay shacay taa imika dadka lagu leynayo marka laga yimaado wadada labaad waa shacay laakiin waxa cadaalad darra intay dhalinyarada dhagax yar ku xidhay in Djibouti looga soo gurmado la yiraahdo wadooyinka la furo waxaan kula talinayaa dhalinyarta ay shacay gaariyaasha saaska wada hal la gubay wadada socda cid kasta oo wadada marta oo maxaa la yiraahdaa Ethiopian ah hal la gubo wadadaay ha xidhnaata ilaa ma iyo inta gobolka looga helayo xal waxa weeyaan qofka gobolka ka soo jeeday markuu taayir wadada dhigo waa criminal waa dambiile marka uu taayir dhagax wadada dhigo waa dambiile booliska inta jigjiga laga soo diro ayaa la qaadaa oo jigjiga la geeyaa maxkamad la geeyaa laakiin marka iyaga xabadda fooda laga saarayo magac loo malaha dawladuna indha malaha mana aragto waxaan hubaa degmada ay shacab dhammaan laga bilaabo Haramukaale ilaa ma iyo Dawalle wax alla waxa gaari jooga hadii dab la qabadsiiyo wadadana gabigeeda kaabadaha la gooyo wadooyinka dhan la wada gubo waxaan hubaa qofka bini'aadanka isaga ayaa xaqiisa dhaxsada dadka shacbiga Soomaaliyeed ee xaq uga dhaxsanay waxaan ugu hambaleynayaa dhalinyarada aadka u ficilka badan ee isku abaabushay inay wadada xidho laakiin durba ma aha madaxda deegaanka isku sheegaysay sababta ay u yimaadeen magaalada Tirraba inay dadka gurmadka ay dhibaataysan u gurmadaan ee waxa weeyaan inay xidhaan ama ay furaan wadooyinkan inay la hadlaan dadkii wadada xidhayna ay xidhaan oo ay booliska lagu soo qaado dad wadadana la furo hadafkay u yimaadeen waa taa ee ma aha in dad Soomaaliyeed oo dhibaataysan loo gurmado hubaal waxa ah oo aan hubin karnaa haddii degmada ay shacay wadada la xidho oo la gubo maanta laba gaari haddii la gubo waa dad dhan baa guryahoogii iyo noloshoodii iyo xoolahoogii iyagii nolosha lagu gubay haddii hal gaari ama laba gaari oo wadada ay shacay taagan maanta dab la qabadsiiyo prime minister ka Birmingham taas waxay ka dhigan tahay wadada ayay dawladdu leedahay wadada ayaa ka qiimo badan dadka shacbiga halka gaari ee wadada lagu gubo ayaa dadka doon yar yaafcas iyo garbaciisa lagu gubay ka qiimo badan waxaan leenahay reer City isku tashada wax badan arka wala hadlaa hebel kala hadlay wax qiimaha ma soo kordhiso bari baan leeyahay waad sacabatumaysiin geel baad qalqalaysiin nothing waxaan leenahay dadka gobolka degan had dareemaan
maanta ta ku dhacaysa garbaciisa iyo dhuunyar iyo dan la helay berri toole waxay ku dhici kartaa ay shaca iyo dhagaale iyo shinile wadooyinka ha la jaro wadanku isku socodkiisu ha xumaado dhalinyaradu ha kacaan war cabdi ilay baad shalay u kacaysiin inaad xukunka ka tuurtaan Soomaali oo dhanna ay lahayd ha lagu dayda sit maanta marka dadka la gumaadayana cid bili aadan oo Soomaali oo ka hadlaysa ay ma jirto dawlad baanan ka hadlaynin dad baanan sidii shalay looga qaylinaynin deegaanana laga banaan baxaynin cidii ku taageeraysaana jirin waxaan hubaa gobolka reer City haddii aanad isdaba qabanin inta hadday maanta dan la helay baa la joogaa berri toole afdan baa la iman afdan bay soo gaari doontaa baasho marka waxa weeyaan meelo badanna berri toole way ka dhici doontaa waxaan leeyahay dhalinyarta reer shaca iyo qabalayga dagago aad baan ugu hambalyeeynaya inay wadooyinka xiraan inay shacbigu suuqyada wadooyinka u soo baxaan inay meelaha suuqyada maanta oo dhan ay joogeen oo halka fadhiyeen aad baan ugu hambalyeeynaya waxaan wallahi aad ugu faraxsanahay inaan arko dad Soomaaliyeed dad shacbi ah oo wadada inta u soo baxeen gaariyaashii dawliga ha wadooyinka ku xiran waa wax aad loogu farxo waa wax aad loogu hambalyeeyo waxaan saleehay inayna noqonin waqti yar oo gaaban iyo sabasho ay la socdaan labada nin ee wadada darteed inay wadada furaan darteed u yimiday magaalada Tirrab intaas waa shacbiga meelo badan baa laga banaan baxay meelaha laga banaan baxay waxa kamid ah Shiniile waxa kamid ah Ayshaca waxa kamid ah Dagago waxa kamid ah Biki laakiin meelo kale badan baa aamusan waxay ahayd maanta gobolka City oo dhan xataa miyigeeda in laga banaan baxo magaaladii Tirrab in laga banaan baxo laakiin waxaad moodaa wali inay jiraan cagajiidad badan dhimashada shacbigana si khaldan loo fiirsado waxa kaloon hambalyo u dirayaa nimanka jiidda hore ku jira saan hore u sheegay waxa weeyaan waxay muujiyeen inay naftooda u huraan dadka iyo dalkaba iyagoona ku haysan wax gargaara waxaan leenahay iyagana kulley ninku markuu saan horeba u soo sheegay qofku markuu reerkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa uu difaacayo waa qayb jihaadka kamida jihaad baad ku jirtiin idinkuna halka ka wada annaka qulubteedu hadaan niga fognahay qulubteedu weynila joogtaa waxaan aad ugu faraxsanahay inaad istifaacdaan oo aad iska difaacdaan ciidan iyo jabhad iyo dawlado iswada idinkoo dad yar oo shacbi ah oo aanan hub haysanin waxaan aad u dhaliilayaa oo aan aad u dhaleecaynayaa dawladda federaalka waxaan ognahay qorshay ka leedahay dhulkan waxaa la yiraahdaa cadowgaaga cadowgii waa sadiiqa waxa weeyaan Oromo wiya waa dawladda federaalka Oromo ay noqotay Oromo iyo dadka gobolkuna Soomaaliyeedna waa col dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan waa col colnimadaas iyadoo uga faa'iideysanaysa waxay rabtaa inay dhulkan iyo dadkanba u gacan geliso canfarta inay u gacan geliso qasadkeeda ugu weyn ee ay ka leedahay waxa weeyaan inay dadkan u gacan geliso dhulkan inay u gacan geliso canfar siday ugu gacan gelin lahayd waxaa la sameynayaa oo la soo boosh gareynayaa oo xagga dambe laga soo riixayaa ciidanka gaarka ah ee canfarta ciidanka gaarka ee canfarta markay ay soo galaan iyo waliba jabhadii dibadda ka soo gashay Tigreega ka soo gashay Eritrea ka soo gashay markay dadkan riixaan meeshan waxaa la dhigayaa hadhow toole ciidan federaal oo oranaya dadkan kala dhax maanta marka dadka shacbiga la leynayo ma kala dhaxgalayo waayo maqsadkiisu waxa jirta meel ay rabaan ciidanku inay gaaraan ciidanku markay meesha gaaraan ayaa ciidanka halka la dhigi doonaa shacbiguna inay soo galin baa la sameyn ciidankuna inay dib u laabtaan baa la sameyn taas waxay ka dhigan tahay waa meel loo xidhayo canfarta ee ma aha meel dadka cadaalad iyo midnimo loo sameynayo waxaan ognahay magaaladii Tirrab oo ahayd xuduntii banaanbaxa gobolka ilaa hadda sidii laga filayay ee ay ahayd in ay magaaladu kala xidhanto ma xidhmin magaalada in laga kaco oo laga dareemo
deegaankoo dhan laga dareemo in yahay lagama dareemin dhibaatadu waxay ka jirtaa maamul daciif ah oo isaguba laftiisa qabyaalo dhexgeeyay deegaankii iyo maamul saameynta ay ku leedahay dowladda federaalku ayaa iyadana ugu wacan marka waxaan leeyahay dhammaantiin war gobolka city haddaanad isku tashanin waxa idiin soo socdaa ma jiro canfar dhinac bay weerar ka wadaa oromo dhinac bay weerar ka wadaa meelo badan oo kale aan hadda rabin inaan carabaabno oo iyada lafteeda weerar laga wadaa jira waxaan leenahay dalka iyo dadka ha loo gurmado insha Allah waxaan soo qaban dhowr qof hadii loo baahdo soo qabasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام برادر. وانكم سلام هالجماعة كل وحنا نقول لها واتري وحوي أنا هتا والله يا ونارون تلا يسكو شيء قروح بدن. تذكر سيتي وحي نقدين وحال الدنيا ده وح أقول مهم سندميرة هذا لي. عندنا دميرته وحال أقول حدا ما دركت هالك أقول دم يسحولها يا أقول حدا. tiibaan maanta waxahayow noqonay waana nagu rartaa haddii halgan la doonayo dadka ugu horeeyaana haddii soo dhaweyn tahay walaalahayow dadka Soomaaligu furan uma soo dhaweysana dadka reer city waxa weeyaan shalay toole dadkii halganka meel qayb dhibax ka qaatay walaalahayow soo riday ee ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Itoobiya dadkii xuquuqdooda u hadlay ee u dhintay ee ficil u maray bay ahayd marka tii la gaarayna walaalahayow dadka maanta halka sida dameera halka lagu xidhay baan noqonay cadowga loo xidhay baan nahay hadal iyo murti walaalahayow raggan maanta ma waxay u yimaadeen dadka dadka walaalahooda la xasuuqaya ficilka darteed bay u yimaadeen mise waa la keenay labada in la isweydiiyo qurux badan ficil uma iman walaalahayow waa la keenay waxa keentay waxa weeye waa maanta oo la xidhay dikadihii dhuunigii Itoobiya awjaadkii Djibouti u baxayo halka dhaafi waayay صح marka hadal iyo murti waa raggan waa la keenay ee iyagu danaheena umay iman ee Itoobiyada kala ka dambaysa haddii ay doonayaan dadkaas inay ka hadlaan waxa weeyaan halka iyagoo joogay ka hadli lahay dad haddii wax loo taro loo baahan yahay waxa weeyaan horta gargaar baa loo fidiya gargaar looma fidin dadkaas sidii bay dadka kuwii dhaawiciina waxa weeyaan say u dhiig baxayaan bay u dhimanayaan dhiig bax canfar baan halka loogu xidhay marka walaalahay raggan waxay soo wadaan ma jirto dadkeena city iyo diri dhaban waxa weeyaan waa dadkaas marka lagu dangaadayna ma yartay loo sacabaynayo marka kalena halka lagu xidhay baan nahay waar gurmad inaga inoogama horeey dadka reer city gurmad ugama horeey iyagu ha isku gurmadaan intaas baan aad ku darayaanu aad baad ma santaa aadina لور قفو كلام سوا قبل إن شاء الله أستاذ بروفال. السلام عليكم أحمد بشير أحمد. السلام عليكم. إيه هذا ما في عنتاي. وفي عنها يورن. قول هذا قول. طور هذا هوين وقول ويان أوكي وقول مثل ما كنت رأيا أنا قلب ما كنت رأيا. أرث ما كنت سلام ما يجوي بلالو. أنا قلب ما كنت رأيا. وحويه. horta aan ka dhimanayna waan ogaano waxa weeyaan gobolka city budgetka ugu weyn ee Itoobiya halka soo galay weeyaan balaak hada 750,000 oo nin oo booliis baa jira hal askari ku nooguma jiro lacagta nima kala siiyay gobolkeena ka soo baxda gobolkeena ay ka soo baxda maalintii dhaweyta maalintii ogaaski iyo odayadeenu la heshiinayeen nima kan ogaadeen maxay ugu dari waayeen conditionada aan maxay heshiis ka mid yahay ugu noqon weyday in ciidamada annaka waxaan qayb leenahay na siiyo haddana ciidamada haysana maanta masaas la nooleyn la wala agteeni waxa la siinay ragaas ay maxay xaafadoodii bay iska hurdaan lacagteeni baa la siiyaa xaafadoodii baseen wixii loogu talagalay shaqadii in loogu talagalay qataan ma qabanayaan waayo dareen nooma daratamayaan de mid yar baan ku tusayaa dagaalkii 77kii waxaa jiray nin la yiraahdo Rayaalo Rooble
wuxuu ka dagaalamay gobolka Shabeelle magaalada Goday buu joogay ma ifantay dagaalkii wuxuu haystay 500 oo nin oo Ciise oo galbeed ka timiday ayuu oo siyaad bar ayuu siiyay uu madaxa wuxuu maqlay in la gumaariyo dadkoogii isagoo waliba taliska ciidamada Soomaalida kamida rayaal halkiiba ka soo goostay ninna waxba mu weydiin 500 nin buu soo qaato dirna buu ku soo dhaadhacay waa nimankii maxay cali libaanta sameeyay buu kamid ahaa ee difaacay maanta haduu commander Ciise jiro oo fadhiyo jigjiga oo waxaysan marka uu kamid yahay oo 500 nin oo Ciise liyo booliis haysto ma waxa uu yahay inuu malayn inuu fadhin lahayo hurdi lahaa ma cid baa marka qaadan lahaa waa maya kamu qaateen amar toos buu gali lahaa dagaalka marka waxaan codsanayaa anigu odayada iyo dadkana maamula mid baan ka codsanayaa waa ugu muhiimsan way waar dal haduuna lahayn ciidan difaac dal ma dal haduuna lahayn ciidan difaac dal ma waxaan u baahanahay 750 kun almost 60,000 men waxay wax soconaya ma waxay wax soconaya ma aadan faarax way dhageysanaya aadan faarax way dhageysanaysaa iyo Mustafa Cagjarow fariinteedu waatan waxaan xaq u leenahay 30 kun ilaa 20 kun oo nin booliis aan u baahanahay xaq u leenahay intaan soo fadhina haddana reer city hal noo xisaabiyo lacagtana soo waxa weeyaan Djibouti waxa ka soo galay dhulkeena mara ilaa Addis Ababa sidaas kaga goosha 3 dikadood baa jira dikada casab ka soo baxda iyo dikada Djibouti ka soo baxda iyo dikada Berbera ka soo baxda intuba dhulkeena maraan intuba mid waa ta dambal marta mid waa ta Aisha marta midna waa ta Galaafi marta ee dadka lagu leeyahay imaka waxa wax manaafacaad naga soo gala ma jiro in kaliya haato oo dadkeena oo tareeha wadayna waa ka lagu dilay shalay toole saa loo ugarsanayo mara ana waxaan ka codsanaa waxa weeyaan horta dariiqo la furaay waaba ka xaraan weeyaan waa run ragani waa la soo diray ragani budba la soo shaabuugay sidoo sheegay walaalkay ka hor waa la soo shaabuugay uma adkaysan karaan maalin qura inaan alla ku jidid ka xidhno uma adkaysan karaan laakiin afartu waa 20 cisho waa jidka joogan cidina waxba ma oran waxa la yiri sidig daad kama talawdo marka waxa weeyaan anagu sidig baan nahay moogtay marka waxa weeyaan anaga cidina dan naga male marka nimankan jigjiga nooga yimid gaaladu dabada ka wado waxa ka mid xabashiyo meesha dhex fadhiyarkay waxa weey waranada ama nagu laaya ama ha nagu leynine ma furina dariiqada ila ma aan xaqay helayno xaqayago in naga qaado nimanka canfareed in dhulkayga dhulkiisa lagu soo celiyo la noo saxeeyo anako arkayno sawirkayna la saxeeyo وقرن ميسي إن واحد لو واحد نقول أنا هاي تفكير النجال لاي حقدر هذا اللي لاي مكتودين النصية إسكيس النصية وحيد دنبيلاش كده دنبيلا سوق قبطهم محكمة الله كانوا سماها محكمة الله كانوا صح وضد كده هاي هذا كوا عوامد مكتودين لك كانوا أول دويه صح واحد نقول أنا هاي بجت كسر بحا روك هيدا مرة إن وحي سلا النصية ما توحي كده دنبيا أو كوا قارن عرورتين يوم ما وضع شومير mid alla xabad shaqaysan ma la dhalinyaradeen lacagteena oo dhan budget ka soo baxay lagu shubaa niman baa jaad ku cuno oo ku raaxaysta oo waxba aan qaban wadanka ugu shaqaynin waxay hadda tool wax soconaya ma haaj hadday dhul weyn leeyihiin oo ay dhulkoogu barwaaqo yahay budget kala soo baxaan de anaga lacagta anaga naga soo baxdaa hay hadii kala gaasha wada leeyahay mara ku dheeraan maayo anu waa taydu waa taa wixii maanta ka dambeeya waa inaan ku dadaalnaa sidan budgetkeena weyn lahayn san ciidamadeena u dhisan lahayn haddii laga maarmi waayo inaan ku dhawaaqnaa inaan go'no صح hadduu warninku hadduu maxay lacagtaadii qaadanayo hadduu maalkaagii qaadanayo uu mooradaadii qaadanayo maxay tahay صح maxay isku keen marka maxay isku keen jirtay halkaasaa la nugu leynayaa way nugu daawanayaan sirdaa soo dhawaynaadeen ifraax halkaa waa nugu leynayaa wayna daawanayaan lacagteena bay qaadanayaan budgetkaygii bay qaadanayaan cid alla cid waxweyn maxayna siiyeen vice president statue oo sawira bay noo dhigeen meesha oo waxa loo dhaadhaan oo aan hadli karayn oon awood lahayn iyo cabdixakiim oo dhaadhaan oo garanaysa dadka cuni jiray ee dhulka ma bixiyey iyaa yidhi cabdixakiim halkaa ha noo yaal iyaa yidhi ma reer city baa weydiistay iyaa weydiistay inuu aadan faarax halkaa noo fadhiisto iyaa la weydiiyey qof iyaa weydiiyey reer city
بس اللي اسويديني صح أيها نودر ترجن مرة هذا دجال كني أنا ودجال كون كجرنا أم واحد مذكر ورجبوت فرع النجد سمعت واحد وين باورع العظيم تسوق حيستين وما لي جات كل إنتي كلام ده جات بركي اللي جوي باورع العظيم بسوق حيستين طريقي هنا جات كان الناس يدا يك على وش سوا وقنية ما سوا وقنية على وش يا وعلى وش هنا هذا الرجع سجبي قلبي بكودي مادين دخل ضميره وديق ماله أنا وحالي هالكا إني ما يرى وحنا نركي إني ما يرى قرية M16 هاي سامركي أو هاي وجه هاي شعور أنا وحالي كل دفتا والله كل دفتا له والله بالله إذا كل دفتا ماذا فكر هذا غير جيبوتي ماذا فكر هذا كل دفتا أبوه وصوي أسكا وأسكا ويان هاي كل دفتا كل دانا هنوان إذا لي هندي هاي فايدة لين ولا نجلس دولة جيبوتي نجلس دولة رجل قطر غير جيبوتي هاي كورن ولا ركتندي ورير جيبوتي ورير جيبوتي كورن كان يومنا ماشي هذا واحد دجالمية وصدق وطن بعد دجالمية وجيبوتي إريتريا إثيوبيا وإسرائيل وصعود دجالمية كان يومنا أيوة واحد لدلي نين بلدلي نين شاندارنا ولدلي نين كان ناق عيسو قبا وقبيلته إنه كمل عيسى ميت كيسوا الله كان جيبوتي نين كان مجي عيسى صدحان بلا قرنة نين كوانين عفرة واحد لوجو دلي واحد لوجو دلي قرب عيسى لوجو دلي دقال في قرب عيسى لوجو دلي واحد قرت قبل ده لو تقول لنا ما حاكون عيوة دقال ويجيرو ترى الشغل لا يدري بيجيرو ويجيب حيوان واكن يمكن ميت كيسوا الله كانت وهو بالو واحد العب هو عاد والله إلا ما تونين بالوجود لي إلا ما تونين بالوجود لي دجال كي قرب عيسى يو عنده تونين يا الوجود لي أي إما كمان تنواك وبروف وأنا كان صور ديني معايا كمان كاميرا ها ورا وين جبوت إن عمر قالوا ما دين ويدن بيسا هاي ما يري واحد مرتين مقال ويدلي إن عمر قالوا ما دين ويدن بيسا دجال كصباحنا وينوت الله ما قلت أنا تازن كقبل بعد ما يا أوكي هذا يا هاي سلام بعد ما سنت يا ذي هاي هذا ضد كان سوق وعوين حقيقة وحقه ما أنت مركي أي شعل وجوجية بابور تجارك يكوي تراسيك يوحي أردن جبوتي بال غيرن يا بابور لقى صوت دوني سجاد كلوقاو أنيقا وحان قبادات كرير سيتيو بابور تجبوتي كإيمان إيسا هل الله يكهر قوة إثيوبيا كي وضع سعودة لأنه haddii ay intay u soo dirayaan baabuur cadcad intay jaadka u soo dirayaan meydka ay ormadu samaysato hal ambulance rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhib markaad aragto wax dhib ah haddaad suulin karto suuli haddaadnad suulin karin ood waxba ka qaban karinna maxaa la yidhahdaa meesha ka teg niyadda ka nac waxa weeyaan dadka islaamka ee dhibaataysan ee la leynaya haddaanad waxba u qaban karin dhibtaada ka daysa reer Jabuuti dawladda Jabuuti wayaan markaan reer Jabuuti baan dhibtiina ka daysta niyad xumada ka daysta calal xumada dadka ku ridaysiin ka daysta jaad baad ciidan u soo dirteen jaad baad gaariyaal cadcad u soo dirteen dad shacbiina gaajay u dhimanayaan intay ciidankii anfartu rasaas la dhaceen reer ay shaca reer dawanle وان كحما هيرر دون لجاريان رير جيبوتي انت يسور دحمران اني يشعي مادين لكن اي دون له اثيوبيان كراو بدن احمر يورما وبدن waxaan leeyahay reer dawallow wadooyinka idinka nilii soo marayay reer Jabuuti inta ay soo dhaxmareen ay leeyihiin jaad ay jacaw soo doonanayaan baabuur joogto wallahi waa ceeb idinka korkiina waxa weeyaan ninka reer Jabuuti ah ee jaab soo doonay ee ay shaca u yimiday ilaahu mu naftiisa soo doonto halka ha lagu dilaan qabaano waayo qof walaalkaya waxa jirta diiga islaamku mar uu banaan yahay baa jira haddii diinta islaamka qof colaadda islaam ah lagu duulayo oo la sii dhaxmarayo maslaxadii dadka ay gaalka la soo saftaan illa la ay banaanta
nimanka reer jabuuti ee jaadka soo doonanaya ha la laayo gaariyaashoodana ha la gubo sababtu waxay tahay haddii ay damqanayaan oo ay dadnimo leeyihiin oo ay walaalnimo kula wadaagaan ciidan dad ha u diraan gargaar iyo humanitarian gargaar bili aadannimo ha u diraan inayna waxba walaaltimo noogu damqan gargaar bili aadantinimo ha u diraan ambulance ha u diraan ambulance-ku hub ma team healthy oo caafimaad oo dadka taageera ha u diraan waynan ahayn xuduudooda inay kasoo gudbin gaariyaashooda halkaa naga haystaan taas reer maxaa la yidhahdaa reer ayshaca waxaan leenahay inagu waxaan dhaqan u leh soomaalidu waxay dhaqan u leeyihiin ama reer city waxay caan ku yihiin sasabashada way yaqaaniin way aqbalaan horey bay ka aqbalaan sasabashada marka lagu sasabo ee laba ciidan laba maxaa la yidhahdaa mas-uuliyiin ay imato isla markaaba sasabashada waan aqbalaa labada nin ee maanta jigjiga uga soo baxay waddada ay shicee xidhan darteed sasabashadoodu way nagu soo maqan tahay waxaanan hubaa markan lisasabo horey baad ka qaadanaysaan ood ka aqbalaysaan laakiin aniga waxaan hubaa conditionka waddooyinka lagu furi karaa waxa weeye ama gaariyaasha iyo waxaa lagu sii dayn karaa waxa weeye waa iyada oo le dadkaas ciidankana laga celiyo dadkii dadka laayana maxkamad la hor keeno dalkaa iyo dalkaana xorriyaddooda loo celiyo haddii aanan la isku damqanin waxba ma hagaagayaan haddii aanan la isku damqanin waxba la heli maayo waxaan leeyahay waddooyinka jabuuti ha la xidho kuwa waddada kale xiga iyagana ha la xidho markaas buu isbeddelku imanayaa markaas baa lagula hadlayaa qofka bini aadankii hadduunan isagu is-xoraynin ma xoroobayo bulshaduna haddaynan iyadu is-xoroobaynin ma xoroobayso xornimadu meel kale kaagama imanayso dowlad federaal iyo xornimo kuma wado nimanka jigjiga jooga ay xornimo kuma wadaan ciidan lagu sheego maxaa la yidhahdaa liu bolis oo aanan markii shalay maxaa la leynayay ee ciyaalku banaanbaxa samaynayeen ciidan liu bolisa lagu soo daadiyey min dawanle ilaa maa iyo afdal maanta oo iyaka la leynayana ciidan iska daaya health center looma dirin xataa caafimaad gaari caafimaad oo ambulance looma dirin waxaan leenahay dadka shacbiga ha isku tashadaan hana hal adkaadaan meel adag ha joogsadaan meel adag ha joogsadaan meel adag oo aanan xaqiiqda dhabta ah laga gaaraya ha joogsadaan insha allah qof kale aan soo qaban haddii ilaahay idhaaho waan kusoo qabtay brother cabdiraxmaan laakiin I think ma qabsoomayo ku noqo dib ugu soo noqo cabdiraxmaan waan kusoo qabtay laakiin ma qabsoomayo ka bax dib ugu soo noqo cabdiraxmaan intaad ka baxday dib ugu soo noqo
وساقط عبد الرحمن لكن أوسع ده مرقب صومي waxaa waxgarashada lagu gaabiyey madaxweynaha deegaanka Soomaalida maalintii la dooranayay taariikhiyan hadda dib u eegtaan waxay ahaayeen dad wuxuu ahaa dad magaalada Tirraba yimiday shirkii Tirraba lagu qabtay ka qayb galay aad u hadal macaana Soomaalinimo dul Soomaaliyeed taa kama ogolin dad Soomaaliyeed oo dhimanaya hal qof oo dambe inuu dhinto ma ogolin Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay fail buu leeyahay nin kalaan bal ku eegi Abdirashiidna waan soo qabtay isagana ma qabsoomayo I think problems my side dhowr qof baan isku dayay inaan soo qabto waa ii qabsoomi waayeen waxaan maleynayaa inay xaggayga tahay waan la dheereeyay programka laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah Cabdiraxmaan iyo Cabdirashiid waan soo qabtay brother waa qabsoomi waayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa dhowr meelood baan la hadlayaa waxaan leeyahay dadka gobolka degan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan haddaan la isku damqanaynin walaalnimadu wax qiimo ah ma laha haddaan la isdareemaynin kulba xaaladdu siday tahay wada dhalashadu wax qiimo ah ma laha haddaanan dhibta qofka cidda ay dhibi haysata aanan lagu garab galayninna oo aanan laga gargaarayn oo aanan la dhiirigelinayn aanan la kaalmeynayna walaalnimadu wax qiimo ah ma laha waxa weeyaan Soomaali baan nahay laakiin Soomaalinimadu waxay qiimo yeelanaysaa marka dadka walaalihii ay isgarab joogsadaan ee ka dhibaataysan la taageero marka ka colaada lagu wado waxa cid kasta oo maanta dalka joogta ay ka dharagsan tahay in dadkaas waxa lagu leynayay ay tahay maxaa la xaq darro qof Soomaali oo aanan dareensanayn dadkaas in xaq darro lagu dilayo ma jiro marka haddii aan dareensan tahay in xaq darro dadka lagu dilayo u heeli diiniyan bay xaq tahay qofka dulman inaad u heeliso ciidan iyo isma laha maxaa la yiraahdaa dad shacbi oo isdiraya Maria what is that Maria waan soo qabtay laakiin Maria waan soo qabtay Mahdi laakiin may soo qabsan ba microphone-ka may soo qabsan kuma jirto soo qaboon bay leedahay kuma jirto Maria maad soo qaban walaalay
والله كما أركب والله إن أسواق بصوتين كلا هذا كما جرتد ماريا أوكي رالي قاو ماريا أوكي عبد الرشيد هذا كان كسوق قبتي لكن ما قبصوا ما يو ماريا رالي قاو لكن ما أركب مقع ماريا dadka soo qabsaday kuma jiro cabdirashiid iyo cabdiraxmaan xasan fanax ban haye bal ku eegi cabdirashiid baa hadda ku jira maareeye brother iga raalli ahow waxaan sawirka kuu yaalla iyo magacii waxbaa isku kaga qaban waaye okay fail buu leeyahay cabdirashiid okay maareeye haddaan kusoo qaban haddaan arkaa عبد الرشيد يحذفنا حنكسر مرة هذا نوع كوارك كم خمسة ويا برادر وعوين اوكي waxaa ku jira wali cabdirashiid okay haddaan ku soo qabtay hadduu qabsoomo maareeya caaqil haddaan ku soo qabtay saaxiib hadduu qabsoomo maareeya caaqil ku soo dhawow Maria. waxaan u malaynayaa Maria waan qabtay waa soo galay codkiisu laakiin ma soo baxayo aniga ma maqla hadduu hadlayo ma aqaan haddaad idinku maqlaysiin mar kale aan ku soo qabtay Maria brother haye hadda waad soo gashay الو السلام عليكم وعليكم السلام سيدي ما يبغى شاولا والله صنتها ولا ما صنتها وانكم سلامي احمد جمال اديك iyo asxaabta walaalaa kale nagu jira meesha rag iyo dumarba waan salaam kawdi صح dareen tahay marka labaad taasi tiiraanyo ku jirto inaan u diro dhammaan qoysaskii dadkii naga baxay dagaalka
shalay ilaa maanta ka socda maxaan ku dhahay doon yar eheladii qaraabadii dhammaan waan ka wada aqseenayaa صح taas sidaa kadib waxaan jecelahay insha allah inaan raygay ka dhiibto barnaamijka runtii waa barnaamij wanaagsan oo baraarujin iyo wax kasi iskugu jira weeyin marka maadaama intii badnay lasoo taabtay oo adiga ragaad ka mid tahay wiilashii ugu horreeyey iyo ay raygayga ay taabteen anna waxaan jecelahay xoogaa inaan meel taabto horta maanta gobolka city khaasatan ay shaca ilaa iyo gobolada kaleba maanta waxay muujiyeen walaalnimo midnimo tu tolnimo iyo tu soomaalnimo inta ku dheehan tahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqon uun maxaan ku dhahaye wax maalin iyo laba ah inuu noqdo wax joogta ilaa aan ka gaadhayno insha allah hadduu ilaahay yidhaaha guusha saasaan horta taasi intaas waa iga araan وسفي عما كم غلا وركود وحبا جارجي هاي غير دحي جارجي أنا قاعد سني marka waxa weeyin waxaan jecelahay xoogaa ma ogtahay inaan meeshan dadka maalin kastaba la waarsanaya sida ugaadha dawladda shaarka dawladeed ha noqoto maamulka canfarta meesha ka taliya iyo maamulka kale Addis Ababa looga taliyo garawaraanka uu ka yahay miso oo maxaan ku raamada uu ka yahay Dr. Abiyo ninkan leeyahay oo maxaan ku dhahaayay ay geed ugu soo gabaneen dhibaatada ka dhacaysa meesha ee ku gadoonsan dadka biyanaan haysan baadna aan haysan sidii ugaadha la waarsanayo maxaan ku dhahaayay cidna u maqneen ceelow qodniintii noqday maxaan ku dhahaayay Falastiinta Afrika iska noqday baan horta maxaan ku dhahay inaan wax ka rib inaan rag ka dhigtaan rabaa وانكم مغلا برادر marka maadaama oo maxaan ku dhahay saddexda degmo si sharci darro ah oo sifada sharciga waddanka Itoobiya aanu oolin loo maray oo qori caaradii dadka maamulka canfarta loo holgeeyay dadkaasi ay isku dhaqan iyo maxaan ku dhahay isku waxba ay hayn maantana ay yiraahdeen annagu waxaan rabnaa inaan markii hore qori caaradii baa maamulka nagu holgeeyay waxaan rabnaa deegaanka aan ka tirsanaanay walaalaha inaan rabnaan maanta mar labaad ayaan rabnaa way ku saxsan yihiin oo ma ogtahay waxa qalad ma ahayn oo dambi ma ahayn in lagu xasuuqo laakiin waxa iska cad sida hadda adigu waa hortay cararbaabtay waxa iska cad inay dadkaasi la iskugu tagay oo ha noqoto maxaan ku dhahay dawladda Eritrea maamulka cafarta maxaan ku dhahay gobolka cafarta iyo Itoobiya laftigeega weynba حتى ولا لون كلا أنا قون كجاب سنة إن حاجة حيبته ودعوة مادام ضد ولا لين أي هذا سكلا سياسة واحد في حتى مركي ما حال كانوا كلا وحال كلا كمش شيء مركي نيك ولا كيسين أنا كجاب سنة حاجة إن أنا ودعوة لكن ضد كاسي هون هدي لا شيء مركي سياسة إثيوبيا لا يراها واحد وباهم تاي إن قلنا كانوا لقوا تجعلمه marka la joogo maxaan ku dhahay maamulka sare ilaahay wax ka go'aan xagga sare marka la joogo waa in dadku ku jiraan maxaan ku dhahay hay'adaha adduunka iyo caalamka iyo meediyaha laftigiisa qaab looga dagaalama jiro marka anigu waxaan soo jeedin lahaa horta meediyaha in la furo maxaan ku dhahay dad barnaamij sidan oo isku taxano mise Afrika ha joogaan mise Yurub mise Mareykan mise Carabaha mise Afrikada bari meesha dooniba ha joogaan oo barnaamij kasta oo soo baxo oo maalin kasta loo wax laga qoro oo adduunyada loo gudbiyo oo waraaqada lagu xeeyo oo la isku xiro oo qol la sameeyo oo farsamo caynkaas lagu dalaaga iyo u baahan tahay moogtay intay maalin wax dhacaan la soo yaaca sidii gorgorkii markuu neefku baqtiyo isku duumanay waa laga wanaagsan taas waa iga maxaan kala wax araariyo jeedin marka maadaama imika la leeyahay ifti baa la qaadayaa iyo afti misarre faradon waxaan yidhaahay misarre maxaan ku dhahay cod baa la qaadayaa إذا مركز عد لقاعد وتقرني ساعة أو مركز ماشي اللي يقول الدقيقة هي عد كلاقاعدة مركز سلوا وكلابه لكن ماشي اللي يقول الدقيقة مقالة هالنقطة من بي مركز نقطنا غير جالس وأقل تكون عفري ولا ماشي جري إثيوبيا واحد إسكع هالكاس يعني كل اللي بكوش ما نايسه أو واسكوب نهاي سياسة إثيوبيا ومشكلة دقالك الجديد اللي قد اللي واحد وين أفتيها درتين إن ضد كان الريحب ضد كان ماشي اللي سود الجيا مركز جينا كفترة في مدينة مي وارنت هذا أو حتى جمال وأديك أكو هاي استولال فيه لكن
inta dadkan referendumkana waxa intayba dhicinba waa lagu iyadoo la soo dejinba oo reer jees ha noqoto xagga nolosha miyiga ha noqoto mise aqalba u ka taagneen xagga magaaladaba oo meel tuula ay ka degin ayaa sideedii Ethiopia dhaqankeega waa naqaanaa waxay markasta ku caan baxday inay khiyaano iyo waxa ay samaysato iska Afrikaana waa nahay sharci ma jira meesha si madax banaan looma kala baxo waa isku ognahay dadku waa iska Afrikaan Ethiopiana waxay si dheer tahay taa lama rabo aftida laftigeega waxa weeyin de garsoorina waa aniga maxaan ku raay sida doona ka yeeli weey marka wax waa indha sarcaadu ma ku qanacday hadhowna daadaaba diida aftidun baa lagu leeyahay marka aan waxaan rajaynayaa taga gudiga door isku dhafana la sheegay gobolka Soomaalida iyo Cafarta iyo federaalka Itoobiya ka socdo saddexdaba ku madax gudiga ka madax banaan saddexdaba la leeyahay waxaas ilgoonaan lagu eego in arinta laftigeega inaad meesha afti la keenay ma ahayn say dooreen ha noqoto laakiin haddana fursad baan haysanaa taa laftigeega farba ku godan oo aftida wax soconayso uma eeko dadkeenuna waxay moodaa inay ku qanacsan yihiin oo si xalaal oo xor inay wax u dhacayaan laakiin ma ahin hurdada laga sara kaco meesha waa Etoobiyana waxay rabtaa horta sida maanta arkayseen markii wadada isku xidhay Djibouti iyo Addis Ababa marka laga bilaabo doolo ilaa ay shaca ilaa maxaan ku dhahay biyo qaboobe halka mar ilaa hadhagaale diridhabe ilaa shiniila iyo maxaan ku dhahay bikigey wadada isku xidhan wixii maanta ka dhacay waad arkaysay oo isku codku waa la waayay labada dhanba sababtoo ganacsi iyo waxyaalo kale isku xidhan waxyaalo badan baa ku jiro markay gadoontayna waa la arkay waxay noqotay laf dhuun ku gashay u noqotay laf dhuun gashay Itoobiya ku noqotay marka xagga kalena maxaan ku dhahay halkan laami kala maro oo xaggan maxaan ku dhahay xuduudkan ilaa laftigeeda wadadan baa martay waad garan kulay dhuka marka nimankan Soomaalida hadii aan ku wareejino meeshan baabaleeyay wax afarta loo beesiyayba marka u horeysaba waa ujeedadaada wax kasta dhici kara baa leeyahay oo dhaqaalihii halkan maro marka waxa la rabaa Itoobiya dhul wala Soomaalida wax wala maraan marka adduunyaduna de ilaa iyo qarni 50 sano 100 sano ka hor basaan bay ahayd oo nimanka Etoobiyadana xeebahan iska daa Djibouti ilaa maxaan ku dhahay berbera ilaa iyo xeebaha maxaan ku dhahay Soomaaliya ribinay qabsadaan marka taariikhdii baa socoto qaab casri ah waliba marka lagu tala jira marka ujeedadu waa siyaasad dibadeed iyo mustaqbalka ku karsare soo socda weey marka laftigeega waxba ku jira meesha in su'aalo badan baa calaamad su'aal badan baa dultaalo laakiin anagu si doonimo ha noqotay laakiin maanta fursadan haysano uma malaynay inay soo marto waxa soo socda Ilaahay baa garanayo marka waxa u baahan tahay in raggeegii iyo haweenkeegii la helo waxa laga tashado u baahan tahay gurmad iyo gargaar u baahan tahay joogta marka maadaama ay tahay 4 sano dadka la soo hayay cad hoostooda lagu hayay sida dadka marka la wareysto maxaan ku dhahay wax xagga ay wax badan ay ka helin dawladda ay qori caaridi loo geeyay maxaan ku dhahay maamulka Cafarta 4 sano soo hayay oo waxba yahaatee dugsi iyo waxba xagga maxaan ku dhahay wax magaalo marka la loo baahan yahay meesha ma jirtaa leeyahay xagga waxbarashada caafimaadka biyaha korontada adeega gabdhuhu isku gaan baa lagu leeyahay marka gabdhaha xaamilada dawadarkaysa rag qoriga isku eg marka waa dad qarnigii 11 inay joogaan baa la moodaya marka waxa weeyin annagu maadaama meesha aan dadku aan Ilaahay meesha maadaamuna dhigay annagu inaan xaggan u eegno hoostan maan xeebtan eegno mooyin waa dadka meesha bay u dhasheen waad u dhaltay Soomaaliya de marka inaan annagu isxil qaadno siyaasad samaysano rag siyaasiyiina maxaan ku dhahay wax aynkaas oo isku nidaamsan oo isku aragti oo inaan samaysano weeyaan miiskii la tigno la gorgorno dadkan weeyaan laakiin dadka halka jooga maareeyo waxaan maleynayaa codka ka go'ay qadka raxmaan malay waxa weey markaasi Axmed Jamaalow marka waxa weeyin qaabkan u dagaalamayna ha noqdo maxaan ku dhahay si farsamaysan oo maxaan ku dhahay ii sheeg banaanbax nabadaysan qor maxaan ku dhahay qori marka lagu leeyimaado gurigaagiina waa inaad difaacaysid waa laga maarmaan inkastoo anigu aan dagaalka kula talinayo laga wanaagsan yahay laakiin qasab bay kugu tahay deedo marka caruurtaada ku horgumaadaya faraha laaban maysid laakiin mid kale aad jirto oo maxaan ku dhahay haddaan Allah u guurooyo waxa weeyin inaan dukiina aamino dadkaana ilaa waxa laga gaaray banaanbaxan inuu socdo waa laga maarmaan weeyaan sida kalena Itoobiya laftigeeda gorta bay u baahan tahay waxay u baahan yihiin qof kasta oo deegaanka ka soo jeedo mise magaca Soomaaliya inuu wadanada xuriyada qowlka leh
maxaan ku dhahay freedom speech kale in Yurub iyo Mareykan iyo meel kasta ay joogaan in la tuso waraaqada la geeyo la gorgortamo iyo loo baahan yahay marka wax maalmo uu soconayo oo gacan ku rimis uma baahan sida maamulkan maanta jijiga laga soo diray ee la yiri oro wadada fura Ethiopia waxa ay ogsoonaatiin inuu qofka dhiigga Soomaaliga inuu ka raqiisan yahay baabuurka isjiidka badacadiisa inuu ka raqiisan yahay taasi maanta nooc cadaatay maamulka jijiga laga soo diray baad arkaysay ogaaska la joogay kaga waxa maxaan ku dhahay de marka waxa iska cad inuu maxaan ku dhahay dhiigga raqiis yahay markaas dadkani waxay rabaan waxa la ninku waraka galiga weedhaadu gali weydo warakaagu ma galaalay moogtay ninku waraka galiga weedhaadu ma galaalay marka waxaan u baahanahay dadkaasi gurmad u baahan yihiin meel kastoo la joogo nin kastaba wuxuu qaban karo inuu qabtaa wanaagsan waxana waxa in la isku yeero maxaan ku dhahay barnaamij soconayo oo muddo dheer horta waxyaabaha qaarkood miiriga lama mariyo waa wadnaa waxyaabaha meelo badan laga wada way jiraan waxyaaba badan oo qorshaysan waddanka kale la tigayna way jiraan meelo badan halganku ka socdaa laakiin xaqiiqda dhabta ah meeshaan laba meelood baan yaa anaga u qabaa hadalkeenaan kaa dhex gelinaya iyo daciifnimadu ay ka imanaysaa meesha ay daciifnimadu ka imanaysay koowaadi waxa weeyaan waa maamulka ku jira deegaanka ee ka soo jeeda gobolka city ama shalay ha yimaadiin ama hore u joogaan dacfigu halkaa buu ka imanayaa in facebooka ay soo dhigaan dadka iyaga waan u tacsiyeenaynaa waan ka xunnahay waxaa ka qiimo badan mabda'a iyo hadafka ay ka leeyihiin inay dawliyan caddeeyaan oo ay shaaciyaan meesha labaad ayaan ka daciifsanahay waxa weeyaan dadkeena sasabashada way u nugul yihiin dibta maanta dhacaysa iyo shalay soo dhacday iyo daraad soo dhacday wax maanta ama laakiin afarta qof ee u imatay ee sasabata sasabashada bay aqbalayaan marka labada meelood ee ka liidani waxa weeyaan maamulkeennii oo dacfi ah iyo dadkeennii oo sasabashada u nugul waa sax weeyin waad adaa ku haysta waa saxsan tahay marka Axmed Jabaal waxa weeyin fursadda meesha taala waxa weeyin war 4 sano dadkani maxaan ku dhahay lacag hoosteeda iyo god hoostii lagu hayay oo la leeynayay oo maxaan ku dhahay dhibato intii qof bil aadan uu mari lahaa mareen oo lagu tijaabiyay baa oran kartaaba dadkani waxa lagu tijaabinayay qof bil aadan intee buu samri karaa intee buu dhibaato u adkeysan karaa intii loo dhan lahaa dad ku jireen bal 4 sano su-aasha maanta taale waxa weeyeen aan caaw halkan aan la wadaag dadka walaalahay iyo aad ka mid tahay qolkana ku wada jirno waxa weeyeen iyo kuwa la daawan doonaba waxa weeyeen war dadkana 4 sano dhibaatada u haysan waayeen mustaqbalka fog kunka sano soo socda iyo boqolaalka sano soo socda ilaahay u baa garanay adduunyada maalintu rogaye ma sidii u bay ugu noolaan doonaan weeyaa say u ekaan doonaan mustaqbalka fog masiirka ummadda ilaahay halka u dhigay say u ekaan doontaa su-aasha in laga jawaabo lagu gorgortama waa taaweyn wax beritooliya maanta iyo maamul baan siinaynayo xilal baan siinaynayo biyo niigelinay koronti iyo waxyaalo caynkaas waxaas waa inta sarcaad waxa weeyaan waa waxyaalo maxaan ku dhahay waa sun waraaba weeyaan moogtay waa waxyaalaha noo dhigay weeyaan moogtay inaan ka fiirsanaa weeyaan laakiin su-aasha meesha taala si cilmiyeysan in looga jawaabaa weeyaan war dadkan mustaqbalka fog ee soo socdo ma sidaan bay cagta ugu sii jirayaan haddii xal kale la waayo wala noodaala leeyahay laakiin noqon mayso waxyaalaha caynkaas in la isweydiiyo oo miis kale la tago oo qalinka iyo maskaxda laga shaqaysiiyo iyo wanaagsan oo rag iyo dumar gacanta loo maxaan ku dhahay arrintaasi may waa la wadaa imika meelo badan oo qurbaha ah waxyaa laga samaynayaa lagu taageerayo qoraalada la sameeyey meelo safaaradaha qaarkood la geeyey safaaradda Ethiopia meel kasta ku taala waa la geeyey macnaha marka waxaan ku leeyahay media-ga waxyaabaha la wado inta badan kulley markii conclusionka laga gaaro iyo marka hawshii lagu jiro in la soo bandhigaa yaa kulley la qurux badan laakiin waa sax dhaliisha waan leenahay waxaan rabnaa markay wax dhacaan inaan kacno ma waa inuu wuxuu jeegto noqdo macnaha masayrka dadkaasi ninka maanta jooga dooyar iyo ninka dambal jooga waa isku masayr waxa weyn ama cafaraha la hoosgeeyo ama meel kale la hoosgeeyo dadkaasi ilaa ay iyagu isku tashadaan oo midnimadooda xoojiyaan oo maxaa la yiraahdaa midnimadooda ay hal meel iskugu imato midna xabadun baa lagu dili midna gaajo baa dili may waa runtaada waa sax weeyin
waraarkii loo xiiri adna soo qoysadii weeyina waa ku saxsan tahay nasiib darre xagga nolosha miyiga marka la eego marka de gaashaan iyo wax la samaysanayo maanta ninka dambe joogo xagga difaaci waan ka xumahay celay waxaan malaynayaa maareeye caaqil khadkaa ka go'ay maareeye caaqil xadkaa ka go'ay aad baad u mahadsan tahay fikir qaalaya ayaa soo jeedisay aad baan saaxiibka ugu mahadnaqayaa hay soo dhaway walaashay barnaamijku waan ku fogaaday waxa weeyaan dhowr arrimood oo kolley waxaan kusoo gabagabeynayaa haddii ilaahay yidhaahdo arrinta koobaad waxay tahay maamulka deegaanka soomaalida dadka ku jiraayo at least dareenkooga dadka ha u cabiraan haddayna waxba qaban karaynin waxaa qurux badan inay dareenkooga saxaa dadka u cabiraan waxa weeyaan dhimasho nin wasiir ah ama wasiir ku-xigeen ah ama xildhibaan ah oo dadkiisii oo dhimanaya xataa aanan ka hadli karin wax damiir xumo ka xuni horta ma jirto waxaan leenahay nimanka dowladda ku jira kow ha u hadlaan dadkooga ha hadlaan dareenkooga ha cabiraan media ha ka cabiri karaan ha u tagaan hadday tegi karaan waxa weeyaan haddayna waxba qaban karin inayna sidayna wax u qaban karin xataa waa inay dadkooga u sheegaan dadku markaas rajadan ay dowlad baa noo maqan iyo dad baa noo madaxa si ay meesha aynan u jirin arrinta koobaad waa arrinta labaad ee kale muhiimka waxa weeyaan dadkani horta kolley nin walba iba maalinkii uu ilaahay qadaray buu dhimanaya dadkani waa dhimanayaan wixii haraay waa haraya dadku kolley ma dhammaanayaan dhulkuna ma guurayo dad badan oo canfar ah oo meesha ku jira oo caytamayaa jira faceka oon arkayaa facebooka laakiin waxaan leeyahay horta dhulku guuri maayo dadkuna dhammaan maayo ilaa ma iyo maalinku ilaahay dhammeeya mooyaane laakiin dhabar jabin iyo dhabar jab iyo damiir xumo waxay ku tahay ninka maanta madaxa ee nasiib darradiisa ilaahay maanta madax ka dhigay ama madaxtinimada ku jira ama dowladaha ku jira ee maanta jooga ayay ceeb iyo fadeexadii dul taala marka labaad waxaan baa ku dirayaa ree ayshaca iyo all jida oo dhan dadka waddada xidhay waxaan leeyahay sasabashadu walaalkaa soo celin mayso waan ogahay kolley sasabasho badan baa iman doonta waxaan leeyahay sasabasha walaal ma soo celisee waxa weeyaan dadkaa waxaad ugu hiilin kartiin codkiina iyo gacantiina waddooyinka sidaad u xidheen bay u xidhnaanayaan ha xidha ilamaa iyo inta xal loo helaya dadka wixii xagga jabuuti naga soo galayana ha naga joogaan ayaynan deegaanka soo gelin dhibtooda dadka ha ka haystaan jaad dadkii u socda gurmad iyo ehel iyo walaal wixii u socda dadku waa dad walaala ah laakiin dadka jaad u socda ee dad kale ganacsigooga inay u hirgeliyaan socda ee ay shacaw imanaya waxaan leenahay fadlan inayna gafnigu noqonine gafkiina la jooga dadka shacbiga ah ee shiidda hore ku jirana waxaan leeyahay inna maca alcusri yusra ilaahay baa insha allah nii kaalmayn doona waxaad ku dagaalamaysaan duulitaan meel kale aad ku duusheen maaha waa naftiinnii iyo xaasaskiinnii iyo ubadkiinnii iyo dhulkiinnii waxaad difaacaysiin ilaahay baa faraj nii furi doona insha allah dadka soomaaliyeed guud ahaanna waxaan leeyahay ha lagu taageero cod wixii lagu taageeri karo cod ha lagu taageero haddii ilaahay yidhaaho dadka walaalihiina ha laysgarab taago reer city gaar ahaan waxaa qasab ah
qabalee kasta xaafad kasta xataa dhulka miyiga ah xaafad kasta oo gobolka ka tirsan in laga bannaan baxo oo la muujiyo shucuurta iyo isgarabtaaga dadka walaalaheena la gumaadayo insha allah barnaamijyo kale oo toos ah oo soo diyaarsanna waan ka samayn doonaa waxaa kaloo aan barnaamij ka samayn doonaa haddii ilaahay idhaaho soo orodkan dheer ee ka yimiday madaxdii deegaanka ugu sarreysay kadib markii wadada ay shiico la xidhay laakiin waxaan hubaa haddii labada wadaba la wada xidho oo labada wadan ay isku socon waayaan wadooyin kasta oo xataa magaalada tirnaba wixii soo galo oo dhan la xidho waxaan hubaa in intaa in ka badani ay iman doonto oo la soo ordi doono axwaashiinana la sheegan doono iyadoo laakiin ay sisaba ahayn dadku way baraarugeen dhalinyaradu wax badan bay fahmeen adduunkuna waa isbedelayaa oo wixii shalay la aqbalayay maanta la aqbali maayo waxa maanta la qaadanayana berritole lama aqbali doono haddii ilaahay idhaaho waxaan aad mar labaad ugu tacsiyeynaynaa walaalahayagii ku geeriyooday oo aan ila naxariista loogu baryaynaa walaalahayagii gacanta ka xaq daran ee xaqdarradu ay ku dishay dhulkooga iyaga oo difaacaya ilaahay ha u naxariisto kuwa xaggiisa laga soo dhaweeyana ilaahay ha ka dhigo kuwa maxaa la yidhahdaa daawacaana ilaahay bogsiimo degdeg oo caafimaada ha siiyo iyakana waan u ducaynaynaa kuwa jiidda hore ku jira ee iyagoo gaajoonaya oo xanuunsanaya oo aanan dawo haysan taageero aan haysan cunto aan haysan cabitaan aan haysan waxba aan haysan haddana dagaalamaya gacanta ku jira ee ciidan iyo jabhado xoogaysan oo hub haysta oo dalal shisheeye iyo dowladnimoba lagu soo taageerayo dadka u jirib dhigaya jiidda hore u joogana waxaan leenahay ilaahay hanila jiro annaguna waan idiin soo ducaynaynaa waanaan idin garab joognaa haddii ilaahay yidhaaho aad baan idinku hambalyeynayaa salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu